بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaan rabaa inaan ku duubo tixgalaya waa gabayga dhayga gabaygan dhayga wuxuu ka hadlayaa xaaladaha nolosha Soomaalida ku gadaama qaarkood iyo haddii sida wanaagsan noqon lahayd wanaaga halkii la gaali lahaa gabaygan waxaan ku soo halqabsanayaa in la yiraahdo Axmed Aadan Cali oo saaxiibnahay Axmed Sakaaki oo nin abuuro reer Burca ninkaas ayaan doonaya inaan tusaale wax u soo qaato tixuusay ugu dhalatay saasayid gabaygu wuxuu oranayaa Axmed oo dhafoor hayska iyo dhayga giyaabka dhafarkiyo waxa ay ugu wacan dhalayga soo jeedka dhacmiyada Soomaalidan faal la dhigayaa dhaqanka iyo saadaaradan baan u taagay dhaqaalaha inta siisaya mara hadheef weyn dhulka hodanaba goor kastaba baan ku qadaya rubugaha biyaha soo mariyo dhayga webiyaasha dhaamanka hadaan qodan lahayn maynu dhibanayno dhulkeena hadaan beeran lahayn naga biyaaleen dhukaan xabaga dhuuyaalihiyo midhaha dhaameelka dhafaruur hadaan kaydin lahayn dhuro meeyeen dhameys nolosha lagu maamulaa sida u dhaamaayo dhimashadana qaar baa haboon dhacay khayrkeen dhugtay hadii aan inta hore u sii dhaafo oo dhaqanka Soomaalidii diga daliilkooda bitaar iyo dhaadheerka geel beehana oo faraska dhul ballaaran kaymaha dhiga dadaha oo dhaansan dhismo buura waan haysanaa dhismo buura waan leenahay dhismo buura waan leenahay dhaxalka waaweyn ee dharka weyn xidhanaa ma nihin dhidarkii kaymaha ee dhismo diina waan haysanaa digana tawxiid dhankii tacabka uun baa xanuun nooga soo dhacay dhismo dawladeed kii hantiyay ama se loo dhaarshay dhisatiisa uu garanayaa doofna ugu guuro dhiilada qabiilkiyo suntuu dhiiri geliyay dharigeyna wada yeeran lahayn wuu ka dhididaayay dhitisiyo wuxuu sii badshaa dheeligii hore ee dhankii ganacsi lama faa'iido dhayig baa jira ee dhiilbuuxsi iyada ku badan taaba kor u dhaabay dheef kororsi mooyee ma jiro aakhira dhiman dheef kororsi mooyee ma jiro aakhira dhiman dhismihii adduunyada rag baa dhaansado cunaya dhabanada ayaa weli hayaa layra wada dhaafiye dhabacdeeda naareed ninkii dheefsadaa helay dhigaya haddii aan intaa hore u sii dhaafo dhallinyaradu waa waxa qalliba dhiilka gaajada ee dhismo dawladeed bay ridaan ama se dhaabaane dhaqan iyo asluub bay hantaan dhaxal u jiidaane dhereg nolosha laga fiican oo hadal la dheerayo dhereg nolosha laga fiican oo hadal la dheerayo dhibha mudan aadmiga dhaliil dhowr sano feero dowrashada xafiisyada riyada dhoofka lagu faano doohalis waa waxa qarribe dhinaca Soomaaliya darqab yaaladeed bay tosheen waana dhurayaana dhuriya caanasi kama gudbaan dheehii nololeed dhufsaniga waxa loo akhriyay xarafkii dheeraayo dhagabeero oo waanadii dhaaftay badankooda dhigadii siyaasiga xunba lagu dhameeyayo dhiilada nimankii ridaa dhuraya ceelkii dhalinyaradu waa raacigii dhoohanaan jiray dharka xidhashadoodii barbaan maanta dhuganayna dhacdo walina waa sida waxaan ciido dhowreyn dhugta shiishka ila saaran baan ciidina dhowrayna kulli dhoofi maayo hadaan dhababo doodayda dhulka daya dhaqaalaha tabcada dhalinyaray toosa dhigta diinta dhigoo ka kala dhacay khayrkeena dhaqmo diinta nooleeya iyo taranta dheegeeda dhaxareeda dhiinaha biyaha baanka u aroorsha dheeliga ka tiray ku dhiibsanaan jiray dhameeyay hadii aan ka tagay erayo dheeraada dhiiranaysa ka kaydin oo dhan dheegayaanada ee dhawaaq kale ninkii iga sugaa meeyay dhinaciisa tixdaas intaas ma kaga baxaya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحسنتي